آذنه هو ساسي قبان عقلك الصح ذا ساقبه وزارة الدفاع وامقشي وزارة الهجوم ولقى مقش وزارة ويرت وزارة الدفاع لا ما ويرره قفت وينه هلكا جوغا آذنها ودفاعيه وحمانتي كنت استعليه إن أصوح ويرر ماها أنا أوح ويرر أيو تاني ودن كاسا حورين أيايو حدنا الدي ما قال دول تاي خسو بحاين وهو يدا أسيقا مركا دوبيسو سمينيسو هو يدا بات سمينيسا قفك هدي والدنيا قدمات إيمانك قدمات حقا جرتو حقيقة جرتو وإنay same level كو جوغان ها ماشي أبوه محي waa protection أبوه قلت أبو لي واحد أبان كلام مالي بيلتي هليا اسكول بلديني أبو لي أباه علنك أبقوه مركا قرن ماذا هذا أي دمته أبا الله أغون بات ميل بالغو بادي أيتام ماذا حلقوس وقحوتي ماذا حلقوس راحية سيدا أغونتي ها مركا دولكي هو يدا قوها إي علنكي أباه قوها قبته هو يا أبانا دافي ميسد دينا دافي ميسد دنمنا دافي ميسد ميلنا قاري ميسد إلهي وحان ويدي سنة يا سبحانه وتعالى أنا إنه إلهي خير نو كل ميو كل فائدة استلاهي ونقدقه قلبي أنا وحي صحة ووافجيه وحي إيتوسي الله إيتوسي وحي إيقا قلو عضي نفطي ذا قلو عسي إن لي سحنا الديار بانو هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أرنتا waxaan u fiirinayaa qaab diineed qaabkeeda siyaasiga ma galayo diintu maxay ka tiri ilaahay subxaanahu watacaala waxaa jira aayad uu dadweynaha kula hadlaayo qur-aanka wuxuu isticmaalaa kuwa ilaahay rumaysanow kuwa ilaahay diidayow marna wuxuu isticmaalaa dadweynow aadanahoo dhan baa lala hadlaa yaa ayuha nnaas waa tan ugu caamsan waay iishugan marka laga hadlaayo arrintan ku saabsan wadaniyadda iyo qofku muxuu sheegtaa jinsiyadda qofku ma diinta mase waa dhulka qur-aanku waa diinta ma dhahayo jinsiyatul muslim caqiidatu waa arrin faaftay oo carabiya qur-aanku saa ma dhahayo qur-aanku jinsiyadda qofka dhulkiisuu ka dhigaya ilaahay wuxuu leeya yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa untha wajacalnaakum adyaanan ma dhahayo waxaan ka dhigaa diimo wajacalnaakum shucuuban وقبائل قرمو يا قبيله قرن والمحوك كوبن يهي تضيو قفتو شعبك يا قرنك ويهيبو كو أبتر صداه ماشا وخليفك يهينا وماشا ألا جانتا ودجيه هدو قفل شلمو جانتي ألا دجيه إنو هرم مريو ومدها كانوا قوبيا ألا سيقبتوي سيدا درتيد انتماغا أما شيغا أبتر سشدا أبكسو قارتا دينتو أي شيكتي وجعلناكم شعوبا وقبائلوي soomaali baan ahay inay hebel baan ahay si litacaarafu si loo garto si loogu dila maaha si loogu hiiliyo maaha si loogu maarata xumaanta wada loogu garab siiyo maaha litacaarafu isbarasha wey ha laisku barto marka aniga baasaboor soomaaliyaan wataa soomaali baan ahay waxaan kanadaan idinku imid booqashaa idinku imid aeroboortka markaan ka soo dego baasaboor soomaaliya inaan soomaaliya waa la garanaya markaan xaafadda soomaalida imaadana yaa tahay inaan reer hebel ahay waa la garanaya wataa labadii qur-aanku sheegay ha markaan gabar idinka soo doono ama aan mucaamalan dhex maray waxaa leenahay horta ninkaan waa quma waa in hebel yuu yahay waa reer hebel oo waa la gartay hebel bay maadan yihiin waa ay garateen marka aeroboor ka soo galaya oo shacab kale u imaanaya maxaa la gartay inaan shacabkaas ahay intimaagu marka waa shacabka soomaaliya ama shacabka hindiya ama shacabka masar asagoo masaari ah buu kala diin duwanaan karaa ninka masriga oo muslimka iyo kirishtaanka labadaba waxaa jinsiyad u ah diintooda maaha wadankooda ana misri muslim ana misri masiixi hooyadu waa dhulka marka diimaha qofka diinta uu raacaya asaga iyo rabbigiisu yeelay asagay u taallaa haddaad islaam raacdo oo meel fiican marto haddaa islaamka sheegato been ka sheegto haddaa kirishtaan raacdo haddaa yuhuud raacdo hawl adiga ku taallo waay waxa anigay quseeya waxa weeye haddaad soomaali ila tahay oo dhulka soomaaliya igula abtirsato oo wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila aad aaminsan tahay aniga waxaa laga rabaa inaad dadkayga xiriiriso dhulkana ammaan siiso dukaanka hadduu leeyahay mid suufi ah oo dikriga shita kan ku xigana uu leeyahay mid shabaab oo nashiidooyinka dhegaysta kan ku sii xigana uu leeyahay mid ma fahanta waxaa la rabaa intay kulligood ammaan isa siiyaan dhulka hortooda inay wada xaaqdaan canshuurta qarantana wada baxsadaan kala ammaan helaan lama raba inay diin iyo madhab isku laayaan
lama rabo inay say rabaan ayaga la tahayeelaan waxaa la rabaa marjic inay diinta ka dhigtaan ilaahay shacab buu naga dhigay shacbu soomaal alcadiim bana la odhan jiray soomaali weyn soo ma shacabkaasaa nahay kooxa kooxo iyo baanda baanda iyo gruub gruub ma nihin shacabkaa horumarkiisa shacabkaa waxtarkiisa shacabkaa waxqabadkiisa u naxariisashadiisa boogtiisa oo la dhayo baa annaga aan janno ku gelayna isaga waxtarkiisa wax noo ah isagoo wax noqda aan wax ku nahay baylahda waxaan kaga baxaynaa shacabka soomaaliya wax noqda weligaa haddaa marti tahay meel kasta ku ahaw karaamada aad ku leedahay ciiddaada yeelan maysid marka waxaan qabaa su-aashii walaalle cid alla ciddii afka soomaaliga la dagaalamaysaa ilahay bay la dagaalamaysaa limaada ilahay wuxuu leeyahay waاkhtilaafu alsinatikum waalwaanikum ina fii dalika laaayaat afkiina iyo midabkiina kala duwan waa aayad alle soomaalidoo dhan baa waxaan ku dhaqayaa daawada naaguhu isku dhaqaan kulli waa wada cadcadaynaya ninta dhahaya seeya waa nin sidee u fikiraya soo nin khaldan maaha waxaa la mida afkaan ka bedelaya carabi baan ka dhigaya ama ingiriis baan ka dhigaya midabkaagu siduu alle uga yimid baa afkaagu alle uga yimid waxa alle sameegaa qofka damca inuu dooriya isagaa doorsooma alle sameen lama doorin karo aadanaha wuxuu sameeyaa la doorin karaa la dagaalanka afka soomaaliga iyo bedelidiisu waa la dagaalanka maqaarka soomaaliga iyo bedelidiisa isku aayad bay ku yaalaan alsinada iyo alwaantu hal aayad wey midabkiina iyo luqadiinaba allay ka timid baa layidhi luqad ilaahay iyo mid ilaahay necab yahay ma jiro alla carabiga ingiriiska waa u siman yihiin waa laba luqadood labadaba asagaa leh aadanahan asaasiiyey mid ka fadli badanna ma jirto haddii qur-aanku carabi ku soo degay boqolaal kitaab baa ku soo degay afafkala saryaaniye iyo cibriye ku soo degay ilaahayna kitaabadiisa ma kala jeclay nebi ibraahim oo nebiyaasha ugu fadliga badnaa diintu ku soo degatay saryaanihii ku soo degatay waa macallinkii nebigeenna macallinkiisii oo lagu yidhi ittabic millata ibraahim maxamedow arday baa tahay raac ibraahim waa macallinkii nebigeenna wey nebi ibraahim calayhi salaam marka luqad laga jecel yahay ma jirto soomaalinimada islaamnimadeennu waxay bays ku leedahay soomaalinimada ogow dhaqanka diinta waxaan ka fogaanaynaa intaan soomaalinimada ka fogaano markay munaafaqad bilaabato dhaqan kale iska doondoon qolo kale isu ekaysiin af kale iska raadin markaasaa ikhlaas ku baxaya waxa wanaagga lagu gaaraana waa loyalty waa ikhlaas wey waa daacadnimo wey daacadnimadu way kaa dhimanaysaa waxaan arki jiray nin ka mida culammada soomaaliya oo markuu wardinayo salaada u dhammeeyo af soomaali buu ku wardin jiray ila wadaa mahadlo 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 ila wadaa uweyn ila wadaa uweyn ila wadaa hufan ila wadaa hufan ardadii baa weydiisay washeekad subxaan allah alxamdulilah wallahu akbar wuxuu yidhi markaan soomaali ku dhaho bay aad ii danqisaa muhiimadduna waxay ahayd dikriga alla inuu ku saameeyo hadafku muxuu ahaa hadafka sux miyuu ahaa mase inuu ku saamaysay ahayd waxay i saamaysaa markaan afka hooya ku dhaho saa darteed weligay waxaan ku wardiyi jiray af soomaali baan ku wardiyahaya idinkana hadba labada kii idin macaanaada ku wardiya ilaahay ma kala jecla afafke alxamdulilaahi fadli gaara ma ay lahaa waxay la mid tahay allah mahadle bay la mid tahay hadba kii adiga faham